wararka naga soo gaadhaya Mooyaale ayaa sheegaya in shaqaalaha gobolka Oromada ee xidhan dharka federaalka ay ku dhawaaqeen in ay kormeer ku tagayaan dhammaan guryaha Soomaalida ee ku yaala magaalada Mooyaale iyaga oo uga shakiyay in ay si sharci darro ah u soo geliyeen badeecado iyo lacag caddaan ah oo ay gacanta ku hayaan. Waa hal shay in qof ama dhowr qof laga shakiyo, laakiin in dadka oo dhan loo qaato sida kuwa kontrabaanka ah waa wax aan horay loo arag oo u dhiganta ciqaab wadareed iyo dhacdharaar ah. Sidoo kale 2,500 oo baabuur oo sida badeecooyin beero ah oo ay ku jiraan bacrimiyaasha lagana keenay dekedda Lamu ee dalka Kenya ayaa loo qorsheeyay inay soo maraan dekedda Mooyaale. Ilaa hadda in ka badan 500 oo baabuur oo sida bacriminta ayaa yimid. Waxaa la isku afgartay in ilaa 200 oo shaqalayste ah loo baahan yahay in laga soo dejiyo baabuurtaas laguna wareejiyo gawaari kale si ay u kala qaybsadaan dhalinyarada Oromada iyo Soomaalida ee ku nool Mooyaale. Si kastaba ha ahaatee, dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa loo diiday inay tagaan xarunta ay ka dhacayso rarka iyo dejinta. Sidoo kale waxaa la sheegay in dhammaan shaqaalaha federaalka ee ka shaqeeya isgoysyada xuduudaha, shaqaalaha amniga, shaqaalaha bangiga, korontada iyo isgaarsiinta ay yihiin Oromo. Laakiin dadka Oromada ah ee ku nool Mooyaale waxa ay ka yar yihiin 1/3. Cadeymaha ayaa muujinaya in tan iyo markii Abiy uu xilka la wareegay in gobolka Oromada uu noqday qofka kaliya ee ka faa'iideysanaya miisaaniyadda dowladda federaalka, badeecadaha la soo dejiyay ee la xiriira gawaarida alaabada beeraha iyo agabka la xiriira. Sidaa darteed, Abiy ee Itoobiya waxay noqotay bangi gobolka Oromia. Si ka duwan maamulkii hore ee Abiy Radiif, xisbiga BE ee Abiy wuxuu ahaa mid loo dhan yahay oo leh dowlad dadka u adeega iyo dhammaan gobollada loola dhaqmo si siman. Hadalkiisa maalinlaha ah ee nabadda iyo derisnimada saaxiibtinimada waxa uu ku mutaystay abaalmarinta nabadda ee sharafta leh. Si kastaba ha ahaatee, hadalladaas oo dhammi may ahayn wax aan waxba ka jirin oo aan waxba ka jirin. Waddankii oo dhanna wuxuu noqday goob dagaal oo gobolladii dalka oo dhan iska soo horjeeday, taasoo Itoobiya ka dhigtay dal fashilan oo adduunku indhaha ku hayo.